Assalaamu calaykum. Waxaa fiican inta aadan ku fikirin sida loo gaaro hadafka nolosha inaad fahanto maareynta nolosha. Sababtoo ah marka aad naftaada ka adag tahay, waxaa suurtagal ku noqonaya wax walba oo aad ka leedahay nolosha. Dad badan waxay jecel yihiin in ay gaaraan meel sare oo ay ku riyoonayaan, laakiin riyadooda ma noqoto mid dhab ah. Haddii aad hadaf leedahay misna aadan gaari karin, waxaa fiican inaad isweydiiso sababta aadan u gaari karin hadafka nolosha. Maxaa ka hortaagan gaaridda hadafka nolosha? Dadka gaaray hadafka nolosha maxay kaga duwan yihiin dadka kale? Su'aalahaasi markaad jawaab u hesho ayaad gaari kartaa waxa aad ku riyoonayso. Haddaba waxaan muuqaalkan kula wadaagayaa noocyada ay dadka u kala baxaan. 1. Qof aan lahayn wax yool ah ama hadaf uu ku dadaalo sidii uu u gaari lahaa, oo haddaad weydiiso oo aad tiraahdid maxaad doonaysaa oo ku qorsheysan ku jawaabaya ma garanayo, laakiin mar haddii aan noolahay igu filan. Qofka labaad, qof garanaya wuxuu doonayo yoolka ama hadafka, laakiinse aan garanaynin sidii uu ku gaari lahaa yoolkaasi, helinna cid markaasi ku toosisa waddada saxda ah si uu u gaaro hadafka ama yoolka uu doonayo. Qofkani kii aan yoolkaba lahayn waa uu ka liitaa. Qofka saddexaad, qof garanaya wuxuu doonayo yoolka ama hadafka uu tiigsanayo, waddadii iyo qorshihiina garanaya, hase yeeshee aan naftiisa ku kalsoonayn in uu guul gaari karana aan aaminsanayn. Kani waa ka murug badan yahay labadii hore. 4. Qof garanaya wuxuu doonayo, garanaya waddadii uu u mari lahaa, naftiisa ku kalsoon in uu gaari karo yoolkaasi ama hadafkaasi, laakiin waxaa raad ku yeesha hadalka dadka oo qof kasta oo riyi u soo jeediya ama aragti isaga oo hawshii ku jira wuu maqlaa. Mid ku oranaya sidan ayaa wanaagsanaan lahayd inaad samayso, qof kale oo haddana beddela isaga oo aan qorshihii uu waday ka gungaarin. Dadka badankiisuna noocan ayay u badan yihiin. Qofka noocan ahi waa uu ka liitaa saddexdii noocee hore. 5. Qof wuxuu doonaya garanaya, waddadii uu u mari lahaana ay u muuqato, naftiisana ku kalsoon inuu guul keeni karo, dadkuna aanay raad ku yeelan oo ayna qorshihiisa waxba ka beddeli karin, hase yeeshee fikirka wanaagsan un ka qaata. Laakiin qofkani guul kasta uu gaaro, isaga ayaa dib u buriya oo u haleeya. Hadduu dhaqaale badan abuuro, meel aan habboonayn ayuu ku baabi'iyaa. Markuu guusha ugu horaysa gaarana wuu iscajabiyaa, kadibna waa uu fashilmaa. Qofka ugu dambeeya, qof garanaya wuxuu doonayo, waddadii uu u mari lahaana u muuqato, naftiisana ku kalsoon iyo awoodda Ilaahay siiyey, guul in uu gaari karana aaminsan, dadkana warkooda wixii ka anfaca ka qaata, yoolkiisana laga leexin karin, guusha uu gaarana aysan caqabad ku noqon ee markuu hadafka ama yoolkii uu doonayay gaaraba mid kale u qalab qaata, Ilaahayna tala saarta. Qofkan ayaa ah kan guulaha gaara, ku dayashana mudan. U noolow si fudud, qeex yoolkaaga, allana tala saaro. Ogow, guul dara kasta oo ku soo food saarta, guul ayaa ku xigta. Haddii aad dhammaysatay muuqaalkan, like saar, share garey ama subscribe saar YouTube-keenna. Mahadsanid.